kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawata ay ku soo dhawaada barnaamijka wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda waddanka hooyo ee Soomaaliya hadahan oo kaleeto bogeena YouTube-ka aad ka daawataan inagu soo biro saaxiibadeena qayb ka noqo adigoo daawada subscribe-ta inaga ilaabeen gambaleelkana inoo taabanayo si aad u noqotid mid ka mid ah asxaabta xilliyada ugu hore helo warbixinadan halkan soo gelino barnaamijkeena xasaasi weeyaan oo waxa inoo soo socda Axmed Aadan Madoobe oo saddex sababood dartood u doonayo in hogaaminta golo kala qaybsan hase ahaatee waxaan daawadayaal ku hormari doonaa oo aan idin la wadaagayaa khilaafka ra'iisul wasaare Xamse iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ergiga gaarka ah ee madaxweynaha uu u saaray arrimaha abaaraha fadlan daawadayna la soco horaanta ilaa iyo dhamaadka aan ku horeeyo qodobkaas khilaaf xoogan ayaa ka dhex qaraxay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo ergiga gaarka ah ee madaxweyne Xasan Sheekh u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha warar madax banaan oo aynu helayna ayaa xaqiijinaya in uu dekada magaalada Muqdisho taagan yahay markab ka yimid dalka Imaaraadka Carabta sidana gargaar loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen ku sugan gudaha Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo ergiga gaarka ee madaxweyne Xasan Sheekh u qaabilsan abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa isku haya cid xaq u leh inay gargaarka kala wareegto dawladda isku tag Imaaraadka Carabta ee deeqda bixisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arinta soo farageliyay wuxuuna amray in markabka uu la wareego ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre loona xil saaro ra'iisul wasaare ku-xigeenka balse waxaa talabadaasi ka carooday dhanka kale ergiga gaarka ah ee arrimaha gurmadka abaaraha u qaabilsan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waraaqo canshuur dhaaf ah oo laga qoray xafiiska ergiga gaarka ah uuna wado mid ka mid ah gacanyarayaasha ergiga ayaa la geeyay xafiiska ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre balse waxaa la sheegay inuu arinkaasi ku hungoobay oo xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu shacab ka qaaday in la wareegista deeqda ka timid Imaaraadka uu xaq u leeyahay xafiiska ra'iisul wasaaraha ila wargalaya inuu xaqiijiyay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu aaminsan yahay in ay tani tahay shaqadiisa balse filla Soomaaliya ayaa sheegaysa in doorka Warsame uu yahay u qaraamid balse aanu shaqadiisu ahayn inuu gargaar la wareego horey ayuu afkiisa uga sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in shaqadiisu aanay ahayn badar qaybin maadaama markii la magacaabay ay dad badan la soo xiriireen iyaga oo ka codsanaya in deegaanadooda uu raashin ka qaybiyo arintaasi oo ergigu sheegay in aanay ahayn shaqadiisa balse kaliya uu xil saaran yahay isku dubaridka gurmadka iyo qaramida dadka abaaruhu saameeyeen iyo sidii looga dhaadhicin lahaa beesha caalamka inay wax ka qabato dhibaatada bini'aadanimo ee ka jirta gudaha Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo si toos ah shaqadiisa u gudagalay ayaa u muuqda mid doonayo in aan lagu faragelin howlaha ay xukuumaddiisa u xil saaran tahay waxaana saacado kadib marka uu soo baxay warka la xiriira isku haysashada ra'iisul wasaare Xamse iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame markabka deeqa gargaarka sidii ay ka yimid Imaaraadka taagan dekada Muqdisho xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo yeeray war ku aadan gurmadka abaaraha iyadoo afhayeenka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale uu shaaciyay in ay ka shaqeynayaan xooga ugu badan oo xafiiska ra'iisul wasaaruhu saarayo sidii lagu gurman lahaa dadka abaaruhu saameeyeen wuxuuna sheegay in xukuumadda dan qaran ay u diyaar garowday wadamqashada dadka ay abaareysan waa hagaag markana daawadayaal aan isla fiirino wararkeena kale ee xiga baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaa ka dhex bilowday khilaaf ka soo tafmay baarlamaankii isaga ku horeeyay labada garab ee doorashadii madaxtinimada ku dagaalamay ayaa dagaalkooda u muuqdaa inuu si ka duwan sidii hore uga dhex socdo gudaha aqalka shacabka hab hogaaminta Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaana ah bilowga muranka aqalka dhexdiisa ka taagan saluugme ay muujiyeen kutlo xildhibaano inta badan ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo ku saabsan saamiga laga siiyay xukuumadda federaalka magacaabista Robo iyo cadaadiska markiiba lagu beegsaday hoggaanka maamul ee Koonfur Galbeed ayaa soo waariday inay isqoonsadaan gudoomiyaha golaha shacabka dawladda uu ku matalo aqalka iyo inta badan xildhibaanada ku haybta guud ah Aadan Madoobe oo kal hore soo maamulay baarlamaankii 8aad ee federaalka ayaa dhibano u ah siyaasadiisii hore oo uu markale tijaabadeeda fashilantay ku hogaaminayo golaha Aadan waxaa lagu eedeeyaa inuusan si hufan gudoonka u maamulin tixgelin la'aanta kooramka iska indhatirka xaadirinta hor istaaga aragtida xildhibaanada
iyo nuglaanshaha madaxweynaha xukunka jooga dad badan ayaana ugu yeeraa inay dibci u tahay dhammaan xildhibaanada kala duwan sida uu maamulay aadan oo caro weyn ka qaba inuu hanan waayay badi xildhibaanada ku kootada ah ee beeshiisa ayaa soo saaray guddi uu anshax marin ugu yeeray taas oo saxnaanshihiisu daacadnimadooda shaqo iyo awoodahoodaba aad loo duray waxaa lagu fasiray guddigan inuu aadan madoobe ka dhiganayo waddo ama dariiq uu ugu kala qaybiyo xildhibaanada federaalka si uu golo kala qaybsan usii hogaamiyo haddaba waxaynu eegeynaa 3 arrimood oo sababay dagaal siyaasadeedka durbo un galay gudoomiyaha golaha shacabka 1 soo celinta jiilka koowaad ee siyaasadda koonfur galbeed burburkii dowladda Soomaaliya masiirka siyaasadeed ee dalka waxa uu gacanta u galayay qabqablayaal iyo dagaal oogayaal ay gadaal ka taagan yihiin odayaal dhaqan kuwaas oo xukunka dalka marraba aan ka bixin koonfur galbeed ayaa ka mid ahayd maamulada sida weyn ay kooxdan xukunkeeda isugu koobtay jiilka aadan madoobana waxay ku naaloodeen 30 sano ay hormuud u yihiin siyaasadda deegaanadaas 2018kii imaanshaha lafta gareen dadka deegaanadaas waxay u ahayd waa cusub iyo baraarug maamulka deegaankaas ayaana hormuud u noqday kacdoon bilow ah oo saf balaaran meesha uga saaray jiilka aadan madoobe kaas oo ka nool siyaasad ahaan saaxiibadiis qayb ka mid ah aadan waxa uu isku arkaa inuu yahay hogaamiyihii soo celin lahaa jiilkiisii da'da lagu beegsaday 2 qancinta madaxtooyada Soomaaliya inaad gudoonka baarlamaanka ku shaqeyso Soomaaliya waa awood dastuuri ah balse ragga xilkaasi qabta waxa ay dhibano u yihiin kooxda madaxtooyada joogta markasta villa Soomaaliya waxay dagaal siyaasadeed ku qaaday lafta gareen iyo saaxiibadiisii golaha shacabka ku jira si uu aadan madoobe dagaalka isaga leexiyo waa inuu daacadnimo u muujiyo maamulka villada waana tan keentay in uu beegsado koox uu xildhibaano laga soo doortay koonfur galbeed oo uu sheegay inay yihiin dad la soo adeegsaday 3 haysashada xukunka kursiga oo aadan ku fadhiyo waa saami beeleed waxaana markasta u furan yahay tartan waana booska ugu badan ee siyaasiyiinta koonfur galbeed ee 70 kor u dhaafaya ay eegtaan aadan madoobe inta badan waxaa banaanka ka taagan hogaamintiisa labaynta xildhibaanada maamulkaas si uu sii haysto baarlamaanka waa inuu aad u yareeyo la falgalkooda siyaasadeed ee xildhibaanada iyo inay ku xirmaan madaxtooyada taas oo u arko daad ku soo rugmanayo waqti uusan gabaad heli karin ugu dambeyn soo celinta saameynta iyo inuu ku garabsiiyo madaxtooyada dagaal siyaasadeed ay ku qaadaan lafta gareen waxaa loo arkaa inay soo dedejisay beegsiga aadan madoobe ku haya saaxiibadiisa ku kootada ah ee kula jira baarlamaanka golaha shacabka waa warbixin aad xasaasi u ah wixii soo kordha daawadan kula wadaagi doonaa haddii Allah uu dil raali u kanoodo intaas ayaan doonayaa inaan ku soo afmeero barnaamijka wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda wadanka hadaan oo kale boggeena YouTube-ka aad ka daawanaysan intaan ku kulmi doono barnaamijkan midkiisa xiga Allah awood leh hadii uu yiraahdo waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaan Allah